السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتمين مانتا وتلاذو ونسدي طبعا كبيش كوبي تبناد إن نوفمبر سنة كلبضو كن إيشان يلباتن كمقال كان مانتا وحربائنا ندي كل وداقو وربحنا الدورة وحاكم ده لبويل أو ولاله أو كه إذا كيسكي مسوق ماسوق ميديكيد كأو دتك daroogada iyo waxyaabahaas laga dhaqayo loogu talagalay in guriyo loogu raadiyo lacagtii ay musuq maasuqeen oo labadaasi wiil oo walaalaha ay noqdeen dadkii ugu horeeyay oo dambigooda qirta arintaasi waan idin la wadaagayaa wiilashaasi maxay yihiin kiis waxaa jiray gobolkan Indiana ka taagnaa ilaa iyo 5tii bishan haweeney asal ahaan ka soo jeeda wadanka Guatemala oo wadankan ku soo gashay soo galooti sharci darro ahayd iyada iyo ninkeeda oo wax ay nadiifin jireen guryaha marka xilli alaseeya 5tii bisha ayaa hal saac oo subaxnimo ah waxa ay doonayeen in guri ay soo nadiifiyaan la yiri soo nadiifiya guri qaldan ayay tageen waxayna isku dayeen inay furaan ninkii guriga iska lahaa ayaa toogtay oo hal xabad haweeneydii ku dhuftay wayna dhimatay ninkii ayaa shalay waxa lagu soo oogay dambi ah in uusan haweeneydaasi u dilin si ula kac ah oo dil aan ula kac ahayn ayaa lagu soo oogay imise sana xabsi ayuu mutaysan karaa maxuus yahay sharciga laga yaabo inuu ninkaasi badbaadiyo oo qaar kamid ah gobolada Mareykanka oo Indiana ay ku jirto ay sidoo kale ay meel mariyeen waxa jirta in aqalka wakiilada hadadan aan idila hadlayo ay ka doodayaan in ay u codeeyaan soo bandhigista Epstein Files Trump shalay waxa uu yiri waan saxiixayaa iyadoo sidoo kale qaar kamid ah dhibanayaashiina maanta ay la kulmeen xubnaha aqalka wakiilada ka hor inta aan loo codeynin waan idila wadaagayaa Trump oo mahad celiyay 13 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto oo kamid ah golaha amniga ee qaramada midoobay kadib markii shalay ay u codeeyeen in ciidamo nabad ilaalin ah la geeyo Gaza iyo sidoo kale in la dhiso guddigii nabadda oo Trump uu isagu madaxda u ahaa madaxweynaha Mexico oo iyaduna sheegtay hadal Trump shalay ka soo yeeray ka jawaabtay oo tiri Trump waxa uu yiri waxaan doonaynaa in kooxaha ka ganacsada draagiska aan ku duqeyno wadanka Mexico maadaama hadda muddooyinkii ugu dambeeyay uu ka weyn Salman maxay tahay waxyaabaha uu ka doonaya arintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada waxa ku jiray laba wiil oo isla dhalatay oo Asad Ahmed Cadow la yiraahdo iyo Anwar Ahmed Cadow oo laba kambani oo kala duwan lahaa isla markaana mid kamid ah lagu eedeynayay inuu musuq maasuqay lacag gaaraysa 2.7 milyan halka midka kalena 1.2 milyan lagu eedeynayay in uu musuq maasuqay midka koobaad oo ah Anwar Ahmed Cadow oo 25 jir ah bishii la soo dhaafay October 23keedii ayuu dambigiisa qirtay isagana horay ayuu dambigiisa u qirtay laakiin shalay ayaa isaguna waxa dambigiisa qirtay Asad Ahmed Cadow oo 26 jir ah maxkamad federaal oo ku taala St Paul ayuuna dambigiisa uu ka qirtay waxana uu sheegay inuu musuq maasuqay lacagtaasi gaaraysa 2.7 milyan isla markaana loogu talagalay dad 250 qof in guriyo loogu raadiyo waxa uu sheegay in gaari BMW ah oo SUV ah waliba X4 ah uu ku soo qaatay oo sanadkiisu 2024 isla markaana guriyo uu ka iibsaday wadanka Kenya FBI-du waxa ay bishii July ay baareen guriga labadan wiil oo walaalaha ay leeyihiin waxana in Asad uu iska lahaa company la yiraahdo Leo Human Services halka walaalkiis Anwarna uu iska lahaa Liberty Plus LLC company la yiraahdo gurigooda markii la baaray waxa loogu tagay lacag 88,000 oo dollar oo kaasha 48,600 oo kamida waxa la sheegay in sariir amaba laga soo helay qolka jiifka ee Anwar 14,760 dollarna waxa laga soo helay meel kayd ah oo safe ay ugu jirtay halka 25,000 boorso meel jaranjaro hoosteeda taalo ama closetka iyadana laga soo helay marka labada wiil oo walaalaha dambigooda hadda waa ay qirteen waxana la filayaa muddo aan la cayimin in la xukumi doono waxana ay mutaysan karaan maadaama dambigooda ay qirteen 4 ilaa iyo 5 sano waana tan waraaqdii shalay uu Asad saxiixay isaga iyo qareenkiisa iyo waliba dacwadoogaha Joseph Thompson markii shalay maxkamad federaal ah la soo taagay marka waxay kamid ahaayeen 8 qof oo dacwad lagu soo ogay muddo 2 bilood ka hor laakiin iyaga ayaa hadda ugu horeeyay oo dambigooda qirtay dhinaca kale gobolkan Indiana oo ku noolahay waxa labadii toddobaad ee la soo dhaafay ka taagnaa arrin haweeney wadanka sharci darro ku soo gashay oo wadanka Guatemala oo immigrant ah iyada iyo ninkeeda oo isla socdo guryaha ay nadiifin jireen marka guri ayaa la yiri soo nadiifiya addresski ayaa la siiyay ciwaankii ayaa ka qaldamay xilli aroorah oo mugdi ahna waa ahayd oo hal saac subaxnimo ah
waxa ay isku dayeen guri aan ka fogeyn kii ay u socdeen in ay furaan. gurigaas waxaa iska lahaa nin la yiraahdo Kurt Anderson oo 62 jir ah. waxa uu ku soo kacay albaabkiisa oo qof uu u maleeyo in uu fura la gelinayo oo la isku dayayo in la furo. cabaar ayuu sugay, ma uusan la hadlin. markuu arkay arrintu in gurigiisa in la soo furayo ay tahay hal xabad, sida aragtaan albaabka gurigiisa hal xabad ayuu soo riday, waxayna ku dhacday haweeneydii oo magaceeda la oran jiray Maria Florinda Rios Perez de Velasquez oo 32 jir ahayd oo hooyo 4 caruur lahayd. marka ninkeedu waa uu la socday, gadaal ayuu u soo dhacday, gacmihiisa ayuu ku qabtay. markii dambe ayuu wuxuu arkay inuu dhiig ka socdo, sidaas darteed ayaa markii booliska lagu wacay, boolisku ay goobtii imaadeen. dacwadoogayaashu ku dhawaad muddo 2 toddobaad waxa ay ka baaraan degayeen ninkan, maadaama gurigiisa qof uu isku dayay inuu furo, dacwad ma lagu soo oogayaa mise waxa uu noqonayaa qof gurigiisa qof u soo dhacayay iska difaacay. Indiana waxa ay ka mid tahay 31 gobol oo iska leh sharci la yiraahdo stand for ground law, oo qofku haddii uu gurigiisa qof si sharci daraha ku soo galayo arkay tahay inuu awood xadaaf isticmaalo isla markaana qofkaasi uu iska celiyo. laakiin shalay oo isniin ahayd ayaa dacwadoogayaashu waxay ku soo ogeeyeen ninkan dil aan ula kac ahayn ama aan kas ahayn, waxaana ku mutaysan karaa 10 ilaa 30 sano oo xabsi ah iyo $10,000 oo ganaaxa. marka ninkan hadda qareenkiisu waxa uu leeyahay ninkan gurigiisa ayuu difaacanayay oo wax dambi ah malahan, sidaas darteedna waxa lagu soo ogay dacwadaasi ah dil aan ula kac ahayn, iyadoo bulshaduna maalmihii u dambeeyay ay arrintaasi cabasho ka muujinayeen oo ay dhahayeen ninkaasi waa in dambi lagu soo ogaa. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa bartiisa Truth Socialka waxa uu ku soo qoray 13 wadan oo Soomaaliya ay ku jirto u mahad celinaya kadib markii 15 wadan ee ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay shalay galinkii dambe ay u codeeyeen qaraar ciidamada nabad ilaalin ah lagu geynayo marinka Gaza, iyo sidoo kalena ansixinta guddigii loogu magac daray nabadda oo madaxweyne Trump uu isagu gudoomiye isaga dhigay. Tony Blairna la dhahayo gudoomiye ku xigeen ayuu ka noqonaya. haddaba 15 wadan ee ku jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay kalinkii dambe qaraarkaasi 13 kamid ah oo Soomaaliya ay ku jirto ay u codeeyeen, waxaana ka aamusay wadamada Ruushka iyo sidoo kalena Shiinaha. marka madaxweyne Trump bartiisa Truth Socialka ayaa waxa uu ku soo qoray qoraalkan uu ku leeyahay caalamka waxaan leeyahay hambalyo kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay wax yar ka hor ay u codeeyeen. waa qoraalkiisa markuu soo qoray wax yar ka hor ayuu cod ku dhacay inay u codeeyeen oo ay ogolaadeen guddiga loogu magac daray guddiga nabadda oo anigu aan madax ka ahay ayuu leeyahay, isla markaana ay ku jiraan madaxda ugu awooda badan caalamka iyo sidoo kalena madax kala duwan. waxaana uu sheegay in arrintan ay noqonayso mid ka mid ah waxyaabaha taariikhiga ah ee qaramada midoobay ay samaysay. waxaana uu sheegay in guddigaasi uu ku hogaamin doono nabad ka dhacda guud ahaan caalamka, waxaana ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mid wanaagsan. thank you ayaan leeyahay yiri qaramada midoobay iyo dhammaanba wadamada ku jira golaha amniga ee qaramada midoobay uu ka bilaabay Shiinaha iyo Ruushka oo iyagu ka aamusay aan u codeynin qaraarkaasi. waxaana sidoo kale uu mahad celiyay wadamada ay ka mid yihiin Faransiiska, Ingiriiska, Algeria, Denmark, Greega, Guyana, South Korea, Pakistan, Panama, Sierra Leone, Slovenia iyo waliba Soomaaliya. wuxuu leeyahay dhammaanba wadamadaasi waxaan leeyahay waad ku mahadsan tihiin sida aad guddigaasi aad u meel mariseen iyo waliba dadaalkana aad u taageerteen. sidoo kale waxa uu mahad celiyay wadamadii qaybta ka ahaa heshiiskii xabad joojinta lagu kala dhex dhigay Israa'iil iyo waliba Hamas. waxaana uu sheegay in wadamadaasi ay ka mid ahaayeen Qatar, Masar, Imaaraadka, sidoo kale boqortooyada Sacuudi Carabiya, Indonesia, Turkey, Jordan iyo sidoo kale wadamada kale oo iyaguna xubnaha ka. marka Trump waxa uu leeyahay waxa sidoo kale jiri doona ogeysiisyo kale oo muhiim ah toddobaadyada soo socda. marka Trump gabi ahaanba wadamadaasi waa u mahad celinaya. aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka hadda waxa ay ka doodayaan soo bandhigista faalalkii ninkii Jeffrey Epstein ahaa. Trump shalay aqalka cad waxa uu ka yiri Oval Office-ka haddii sharcigaasi uu soo gaaro waan saxiixi doonaa, laakiin waxa la leeyahay isniintii aqalka cad markuu ku soo laabanayay 1 saac iyo 48 daqiiqo oo diyaaradda Air Force One hawada ay ku soo jirtay waxa uu la kulmayay afhayeenka aqalka cad haweeneyda la yiraahdo Caroline Leavitt, waxaana kala arrinsanayay bal toddobaadkan inta arrintan ay taagan tahay sidii maamulkiisa ay uga difaaci lahayd. Trump waxaan ognahay waxa uu leeyahay arrintan Epstein Trump waa kii yiri waan taageersanahay in xubnaha Republicaanku ay u codeeyaan soo bandhigista Epstein Files maxaa yeelay ayuu yiri
11 bilood oo wadanka maamulayay guulihii aan gaaray dhanba lagama hadlaya arrinta Epstein files ayaa laga hadlayaa marka dhinaca iiga dhacdo laakiin waxa la yaab leh Trump iyadoona labada aqal aysan meel marin oo isaguna uusan saxiixin isaga ayaa awood u leh wasaaradda cadaaladda inuu ku amro oo yiraahdo Epstein files kaasi hala soo bandhigo maba u baahnaba Congressku inay meel mariyaan labada aqal ee sanadka iyo aqalka wakiilada kadibna isagu uu saxiixo shalay marka wuxuu yiri waan saxiixi doonaa haddii labada aqal ay meel mariyaan isla markaana miiskayga uu sharcigaasi soo gaaro dhinaca kale haweenkii dhibanayaasha ahaa ninkii Jeffrey Epstein ahaa uu iibin jiray ayaa iyaguna intooda badan waxay tageen aqalka Congress-ka xubno aqalka wakiilada ayay la kulmeen waxa halkaasi ka hadashay Marjorie Taylor Greene oo Trump arrintan ay isku la dhaceen maalmihii la soo dhaafay oo xitaa ku tilmaamay qaa'inul wadan maanta waxa ay dhibanayaasha hortooda ay ka sheegtay inaysan qaa'inul wadan aysan ahayn qaa'inul wadan waxa la yiraahdaa ay tiri qofka Mareykanka danihiisa ka soo horjeesta oo wadan kale u adeega iyo naftiisa laakiin anigu wadani ayaan ahay waxaan u adeegayaa wadankayga iyo waliba dadka wadankayga ayaan u adeegaya iyo dadkayga marka waxay tiri Trump oo muddo 6 sano aan taageeraya naf iyo maalba hadda hadii ugu tilmaamay qaa'inul wadan waxay tiri arrin la qaadan kara ma ahan marka sharcigan isla maanta ayaa loo codayn doonaa kadibna sanadka ayuu u gudbi doonaa waxa la filayaa xubno badan oo Republican ah in ay ku taageeri doonaan xubnaha dimuqraadiyiinta dhinaca kale madaxweyne Trump shalay aqalka cad waxa uu ka sheegay in wadanka Mexico kooxaha daraagiska ka ganacsada uu halkaasi ku duqeyn doono waxa uu jirtay in toddobaadyadii u dambeeyay ama labadii bilood oo u dambeysaba in ka badan 20 duqeyn in Caribbean-ka badda ku taala ee Pacifica waday in daroogo oo loo malaynayo Colombia iyo Venezuela inay ka yimaadeen in Trump uu ku duqeeyo walow xubno Republicana oo labada aqal ku jirta arrintaasi ay leeyihiin sharci darro marka Trump markii wuxuu yiri Mexicana laga yaabo inaan ku duqeyno arrintaasi madaxweynaha Mexico shir jaraa'id ay maanta qabatay ayay uga hadashay waxayna uga digtay Trump in arrintaasi uu sameeyo oo ku tilmaantay mid qatar ah waxay tiri arrintaasi ma dhici doonto mana u malaynayo in Trump uu doonayo arrintaasi inuu sameeyo shalay mar wax laga weydiiyay aqalka Oval Office-ka Trump ma laga yaabaa in kooxaha daraagiska ka ganacsada aad ku duqeysaan wadanka Venezuela gudaheeda wuxuu yiri aniga okay waaye arrintaasi wax dhiba uma arko marka fentanyl-ka iyo darooyin kala duwan ayayna soo gelinayaan wadanka wuxuu yiri markasta oo darooga ay soo geliyaan 25,000 oo qof oo Mareykan ah ayaa ku dhimanaysa ugu dambeyntiina madaxweyne Trump waxa uu soo dhaweyn heer sare aqalka cad maanta ugu sameeyay hal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya wafdi uu hogaaminayo 2018 ayaa ugu dambeysay Mareykanka inuu soo booqdo markii saxafigii New York Times shaqeynay lagu eedeeyay in caasimadda wadanka in dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara in qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay lagu dilay marka Trump diyaarado ayaa maanta dagaalka ayaa la kiciyay farda ayaa lagu soo dhaweeyay wafdiga Mohammed bin Salman uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga wasiirka ganacsiga iyo sidoo kalena wasiirka maaliyadda ayaa kamid ah wasiirada soo dhaweynta ka qayb galay Trump waxa uu sheegay in diyaaradaha F-35 ka laga iibinayo diyaaradahaas Mareykanku waxa uu ka iibin jiray wadamada saaxiibka dawla ah oo NATO ay kamid yihiin laakiin hadda waxa laga iibinaya dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa la arkay Trump oo aqalka cad kala tustusaya dhaxal sugaha dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman waxana soo dhaweyntan ahayd mid heer sare ah oo intii Trump hadda xilka uu qabtay madaxweyne ama mas'uul soo booqday wadanka Mareykanka aan aqalka cad loogu soo dhaweynin waxana kulan ay ku wada qaateen Oval Office-ka arrintaas waan arki doonaa wada hadalkooda waxyaabaha ka soo baxa waxaana wafdiga Mohammed bin Salman kamid ah ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo hadda u ciyaara kooxda Al Nassr ee dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya horeyna ugu soo ciyaaray Manchester United Real Madrid iyo waliba Juventus waxa markii 2 toddobaad ka hor wareysi uu siiyay Piers Morgan waxa uu ku sheegay Cristiano Ronaldo inuu yahay qofka ugu caansan oo xitaa Trump uu ka caansan yahay waxa sidoo kale uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu Trump la kulmo horey funaanad saxiixan ayuu ugu soo dhiibay Trump ninka madaxda xiriirka kubadda cagta ee dalka Boortaqiiska marka waxa la filayaa Trump in uu la kulmi doono sidoo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo